السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام halkan waxaa inooga bilaabmay barashada application-ka Adobe Premiere oo ah run ahaantii application aad faa'iidooyin waaweyn u leh kana wanaagsan application-ka Filmora maadaama uu ka wanaagsan yahay waxaa isweydiin mudan waxyaabaha uu kaga wanaagsan yahay kow iyo laba midna ma ka ogaanaynaa waxyaabaha uu kaga wanaagsan yahay waxaa ah oo kow markaa ka ah inuu effectiyo fara badan leeyahay oo aad la soo degi karto isticmaali karto una wanaagsan yahay marka xafladaha aroosyada iyo waxyaabaha la halmaala loo sameynayo nidaamka ah in qurxin loo sameeyo dheeraada marka featureska uu leeyahay aad ayay u badan yihiin waana baran doontaa insha allah inta ugu muhiimsan maadaama uu arrinku sidaa uu yahay waxaa isweydiin mudan daaqadan iminka horteena ah arrinkeedu muxuu yahay sida applicationada kaleba aynu la soconno sida Photoshopka halkan waxaa inooga muuqda new project in project cusub la furto open project in la yidhaahdo project hore soo fur projectka u horeeyo oo new project baynu leenahay maadaama aynu new project nidhi aynu halkan joogno halkan waxaa inooga muuqda versionka waa 2019 versionku muhiim male marka application lagu guda jiro ee weliba basekiisa lagu guda jiro muhiimadda sababta aanu lahayna waxa weeye waa in applicationka kuu soo kaco oo aad isticmaasho shaqadaadana uu kuu qabto baseka wixii advanced iyagu waa arrin gaara markaa taa maanka ku hay halkan haddaba sida applicationada aad hore usoo dhigatay aad ugu soo aragtay ayuu halkan wuxuu ku weydiinayaa magaca inaad projectkaaga bixiso waxaynu u bixinay bilow baynu u bixinay halkee baan la dhigayaa wuxuu ina weydiinayaa goobta la dhigayo browse de goob dooro markaa tusaale desktopkii oo kale haddaan doorto amaba haddaan this pc idhaahdo marka waxaynu dooranaynaa folderkaas select baan leeyahay okay baan leeyahay markaa haddaba inta aanan okay odhanin halkan wuxuu ina weydiinayaa videoga qaybta sidaa isaga daa timecoreka u daa audiyadana audio samples u daa captureka qaybta ahna dv-ga u daa waxba intaa laga bedeli maayo gadaal waynu ku ogaan doonaa wixii isbedel qaadanaya okay baan leenahay marka aad halkan timaado waxaynu isweydiinaynaa qaybta u horeysaynu aadaynaa waa qaybtii wax laga soo geliyo qaybta wax laga soo geliyaa waa qaybtan haddaba markaad wax kasoo gelinayso waxaad double click waad ku dhufan kartaa ama right click kabacdi waxaad dooranaysaa import dooro markaa waxaad soo gelinaysaa tusaale muuqaalkan aan soo gelinayaa wakaa soo galay laakiin waxaa ka muhiimsan muuqaalka aad soo geliso inaad wixii folderra u samayso sida halkan ka muuqata new bean baa ku yaala new beanka dooro magac u bixi marka way images baan u bixinay wixii images si aad u dhex geliso gudaha u gal isaga right click import ama double click ku dhufo soo geli wixii images highlight wada saar labadaba soo geli maadaama aad soo gelisay halkan waad ku dhufan kartaa projectkaagii bilow kan waad iska delete garayn kartaa muuqaalkan waxaanaad samaysan kartaa folder marka halkan folder ka samayso folderkii magac u bixi hoos soo daadaji tan yar maadaama aad isagii dul joogto folderkii halkaad ku dul dhufo halkaa dushiisa magaca ka bedel waxaynu leenahay kan waa kii videoiska markaa wixii video gudaha u gal double click dhe ama right click dhe waa isku mid soo geli markaa muuqaalkii okay maadaamaad soo gelisay halkaa dib uga soo noqo projectkaagii bilowga kaalay maxaa kugu jira videos iyo images waa waxaad uga baahanta tusaale waxaan u baahanahay videoga inaad shaqo ka qabto marka videoga shaqo laga qabanayo halkan kaalay soo qaad halkaa dhig halkaasee loo soo jiidaya adoo left click lahaya dhig barta halkan markaa waa goobta loo yaqaano timelineka ee lagu jarjaro muuqaalka iyo codadka halkanna waa goobta uu kasoo muuqanayo waxa aad ka shaqaynayso markaa fit baad u daynaysaa halkaa maadaama intaa tahay qaybtan waxaa loogu talagalay in shaqada dheeraadka lagu qabto oo sourceka weeye haddaba sourceka faa'iidooyin badan buu leeyahay gadaal baynu uga iman doonaa insha allah intaa haddiiba aynu samaynay arrinkeenuna maanta uu intaa daaranaa halkan sidii aad faylka uga samaysanaysa waad uga samaysan kartaa new file open waad odhan kartaa recentiga waxyaabaha ah ee u dambeeyana waad soo gelin kartaa halkaasu intaasay qaabilsan tahay
marka halkan waa halka lagu jarjaray muuqaalka. Cashirka xigana waxaad ku baran doontaan insha allah qaabka loo jarjarayo loo hagaajinayo. Haddaba maadaama hadalku uu sidaa yahay, waxaan isla arki doonaa in yar oo fudud oo ah qaabka loo save gareeyo. qaabka aad u save garaynayso sii yara baro hadda, kabacdi baa shaqadeenu halkaa wada qaabilsanaan doontaa. waxaan leenahay file, kabacdi waxaan leenahay export, kadibna waxaad ka dooranaysaa media. haddii kale waxaad ku iman kartaa control plus m, ayaa intaas dariiqi aad soo martay kaaga filan. markaad halkan timaado, ugu horreyn halkaa maxaad ka dhigaysaa fi inay ku taha laga yaaba, laakiin ka dhig h264 ka dhig formatka ugu wanaagsan markaa weeye. haddaba maadaama intaas samaysay, waxa lagaaga baahan yahay inaad halkan timaado. halkan waxaa lagaaga sheegayaa muuqaalkaagu inta uu leegyahay. haddaba maadaama muuqaalkaagu intaa leegyahay, haddii aad kor usii kiciso tayadiisa kor usii qaadmaysa, markaas heesahana wuu badanayaa. halkan marka dhaqaaji, halka u hooseysa haddii aan imaado iminka oo aan sameeyo in aan yaro kordhiyo target bitrate-ka, u fiirso inta uu leekaanayo wuu kordhaya. marka halkaasuna waa halka markaa kordhinta muuqaalka tayadiisa markaad kor u qaadayso. laakiin waxba aad looma aade, hadba intii aad ka jeceshahay unbaa laga doortaa. intan sidaas ayaynu u daynaynaa. shaqada aynu ka qabanaynaana hadda inta ay ku koobmayso ama kusoo afmeermaysa waa inaad export garayso. export baynu leenahay markaa, isaga ayaa save garaynaya, waanaad iska suganaysaa waqtiga uu qaadanayo. halkaa waxaa inoogu soo afmeermay cashirkeenii aad ku baranaysay hordhaca amaba shaqada ugu horeysa ee laga qabto applicationka muhiimka ee Adobe Premiere. intaa cashirka inoo xigi doonaana waxa weeye cashirka jarjaritaanka iyo ka shaqaynta muuqaalka. cashiro muhiim oo badanina way inoo xigi doonaan insha allah. marka intaa waxa inoogu soo afmeermay applicationkeena cashirkii u horreeyay aad qaadanayseen. waana idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.